idin salaam saaxiibada qiimaha badan meel kastoo dunida daafeeda ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena akhbaaraadka aflaam turarka ugu dambe inta badan caawa barnaamijkeena qodobada waqti xadirkan taagan ayaan kusoo qaadan doonaa intaan guda gelin barnaamijka haddii taa markii kuugu hore soo booqanaysa channelka waxaan kaa codsanaa inaad subscribe noo saarto sidoo kale haloowin inaad muuqaalka laaga noo saarto aan ku bilaawno qodobkeena kuwa saaxiibada waxaa si official loogu dhawaaqay filimka weyn aan sugayna Attack Part 1 waqtiga OTT lagu soo fasaxi doono sidoo kale barta laga daawan doona filimkan waxa hogaamiye ka Marqaniga Bollywood Connect lagu magacaabo John Abraham sidoo kale waxa kula jireen gabdhaha kala Raquel Breed Sene Jacob Fernandez sidoo kale filimkan saaxiibada box office-ka oo ku fashilmay sidoo kale wuxuu noqday filim dadka qaado dhisaasar noqday sida daraadeed haddaba official filimka weyn Attack Part 1 waxa laga daawan doona barta loo yaqaan Z5 sidoo kale waxa la daawan doona 7 bishan ku May ayaa laga daawan doona sida hadda shaaca laga qaaday saaxiibada filimkan lagu magacaabo Attack Part 1 waxa hogaamiye ka John Abraham sidoo kale producer-ka sidoo kale rajada la qeexay filimkan in qayb labaad laga sameeyo laakiin hadda maadaama qaybta koowaad big disaster u noqday sida daraadeed hadda rajada ahayd in filimkan qayb labaad laga sameeyo doono ceel ay ku dhacday hadda meel ku qorta filimkan Attack Part 1 waxa laga daawan doona Z5 taariikh markii ku aasaasan tahay 7 bisha aan ku jirno ayaa laga daawan doona sida hadda shaaca laga qaaday saaxiibada qiimaha badan hore waxaan ila ku walaal in ninka lagu magacaabo Salman Khan saaxiibada qiimaha badan in uu dawis ku bilaabay filimkiisa weynaa ka bidbaari sida daraadeed Salman Khan maanta saaxiibada wuxuu ka soo bandhigay aragtida koowaad filimkiisa lagu magacaabo ka bidbaari sidoo kale sawirkan hortaan ka muuqdo waa ninkiisa loo baahay sidoo kale timaha ayuu gideystay timada dheer ayuu la soo baxay sidoo kale oo kale oo xireen waana xarakeena saaxiibada qiimaha badan saloo filimkiisa ka bidbaari wuxuu ku matali doonaa nin timaha dheer sidoo kale filimkan waa film action iyo sidoo kale drama isku jira marka laga soo tagay saaxiibada qiimaha badan Salman Khan sidoo kale filimkan waxa tirsho ku adkaa gabar lagu magacaabo Mujahid sidoo kale filimkan waxa ku jiro ruwacdaag lagu magacaabo Vintage sidoo kale ninka lagu magacaabo Ayu Sharma Salman Khan sidigisna door ay ku leeyahay sidoo kale qorshaha wuxuu yahay filimkan ka bidbaari in la daawo saaxiibada qiimaha badan dhamaadka sanadkan qaasatan bisha December 3keeda markuu Saloo Bay dhalashadiisa u dubaldegay in la daawado ay qorshaha sidoo kale filimkan isdaba joog ayuu u duubi doonaa ninka lagu magacaabo Saloo Bay ku dhawaad waxa la sheegay 8 maalmood ku dhawaad inuu dawis filimkan uu gelin doono sanadkan dhamaadka si loo daawado filimkan sida daraadeed maantana sawirkan hortan ka muuqdo ayuu Saloo Bay ka soo bandhigay sidoo kale wuxuu sheegay shaqada filimkan inay bilaabatay dhinaca kale saaxiibada qiimaha badan waxa si official loogu dhawaaqay filimka lagu magacaabo Thank You waqtiga la daawan doona filimkan waxa hogaamiye ka saaxiibada qiimaha badan wiilka lagu magacaabo Naga Chaitanya sida daraadeed hadda waxa si official loogu dhawaaqay filimkan in la daawan doona taariikhda markii ku aasaasan tahay 8 July ee sanadkan la ku jirno 2022 ayaa la daawan doona sidoo kale saaxiibada qiimaha badan maantana wiilkan waxa laga soo bandhigay kaartada hortan ka muuqato waa ninkii ahayd Naga Chaitanya oo xarakeena oo keelkiisa jaakadiisa sidoo kale saaxiibada qiimaha badan ninkan aad u saaxiibada qiimaha badan isku dhaw sidoo kale wajigiisana waxa ka muuqdo wax loo yaqaan Ismail ama dhul cadanay ka muuqato sida daraadeed filimkiisa Thank You waxa la daawan doona 8 July ee sanadkan 2022 ayaa la daawan doona filimkan waxa director ka nin lagu magacaabo Vikram sidoo kale saaxiibada qiimaha badan director ka iyo sidoo kale Naga Chaitanya waa markii labaad iskala shaqeynaa filim maadaama hore iskala shaqeeyeen filimkooda ahaa Manam sida daraadeed haddana waxay ku midoobeen mashruuca lagu magacaabo Thank You sida daraadeed hadda waa official 8 July ee sanadkan ayaa la daawan doona sida hadda shaaca laga qaaday warbada kale barnaamijkan ku soo qaadanayna waxa kamid ah saaxiibada qiimaha badan in bacaadi maan goosgooska holaca laga soo bandhigay filimka lagu magacaabo The Warrior saaxiibada qiimaha badan filimkan waxa hogaamiye ka wiilka lagu magacaabo Ram Buthini saaxiibada qiimaha badan filimkan lagu magacaabo The Warrior maanta waxa laga soo bandhigay goosgoos ajaa'ibkiis wato wiilka lagu magacaabo Ram Buthini aad u xarakeena maadaama filimkan uu ku matali doona askari may adag sidoo kale filimkan waa action trailer ayuu isku jira saaxiibada waxa shaaca laga qaaday filimkan lagu magacaabo The Warrior in lagu daawan doono luqadaha ugu caansan dhankaasiyo koonfurindi waa luqadaha kala Tamil Telugu ee filimkan lagu daawan doona ogaada filimkan waxa tiyaatar la saari doona taariikhda markii ku aasaasan tahay 14 July ee bisha sanadkan saaxiibada qiimaha badan filimkan waxa tiyaatar la saari doona 14 July ee sanadkan 2022 ayaa la daawan doona 14 bisha July ayaa la daawan doona sida hore shaac lagu qaaday waana filim ku xarakeena wiilkan lagu magacaabo Ram Buthini maantana saaxiibada qiimaha badan goosgooska laga soo bandhigay in bacaadi maan ogaada filimkan waxa tirsho ku adkaa gabar lagu magacaabo Karita Shetty waana gabadh ku soo caan baxday filimkii oo beena oo blockbuster ka noqday sida daraadeed haddana waxay la shaqeynaysaa jalaaga aadka loo jecel oo wiilka lagu magacaabo Ram Buthini sidoo kale saaxiibada qiimaha badan filimkan waa film action
iyo trailer iskugu jira maantana wiilkan goosgooska laga soo bandhigay cajaa'ibkiis ayuu wataa filimkan sidoo kale filimkan saaxiibada qiimaha badan waxaa lagu haweyn yahay marka tiyaatar la saar in wacdar lixaad la dhigay maadaama Rambo Thini goosgooska uu maanta laga soo bandhigay filimkiisa aad nooga yaabsa hadaa goosgooskan soo daawatina aragtida comment nooga biiri markaan saaxiibada qiimaha badan soo qaadana Today in History maanta oo kale filimta aan kala daawado maanta oo kale waxaa tiyaatarada ku hardimeen filimada kale oo filimka lagu magacaabo Lakiro jilaasha badna la iskugu keenay sidoo kale filimka kale lagu magacaabo Run sada darada isla fiirin doona filimtan box office-ka natiijaan waxay ka noqdeen marka hore saaxiibada qiimaha badan waxaan ku bilaabi doonaa filimka lagu magacaabo Lakiro filimkan waxaa la daawad 14 May 2004 ayaa la daawad waxaa hogaamiyalka ay saaxiibada qiimaha badan Sanad Dolson Shati soo ilqaan sidoo kale John Abrahamna oo ku jira waxaana director-ka ninka lagu magacaabo Ahmed Khan saaxiibada qiimaha badan filimkan Lakiro waxaa la saartay tiyaatar gaaray 350 shilin ayaa laga daawad waxaa loo qarash garay miisaanad gaaraysa 16 karoor ayaa loo qarash garay cumraantiisna filimkan wuxuu soo xir lacag gaaraysa 4.9 karoor taasoo ka dhigan filimkan in khasaare la xal laga kulmay sida daraadeed natiijaan wuxuu noqday filimkan tarbar disaster ay noqday ama filim 3 laab burbur ayuu noqday waxaana filimkan tigid goosto shaleemada ka daaw sida hada diiwaan gashan dad gaaray 1,929,000 qof ayaa tigid goosto shaleemada ka daaw wuxuu noqday natiijahan disaster ayuu noqday filim burbur ayuu noqday dhinaca kale waxaa la fiirin doonaa filimka tiyaatarada ku hardeen lagu magacaabo Run filimkan waxaa saaxiibada qiimaha badan la daawadasna 14 May 2004 ayaa la daawaday waxaa hogaamiyalka ay saaxiibada qiimaha badan Abhishek Bachchan ninka lagu magacaabo Mahesh Manjgar sidoo kale saaxiibada qiimaha badan waxa ku jirta gabar lagu magacaabo Aisha Julka sidoo kale filimkan waxa producer-keed gabadha gooriyo lagu magacaabo Sari Devi saaxiibada qiimaha badan filimkan asna waxa la saartay tiyaatar gaaray 290 shilin ayaa laga daawaday waxa loo qarash garay miisaanad gaaraysa 6.25 karoor ayaa loo qarash garay cumraantiisna wuxuu soo xiray filimkan lacag gaaraysa 4.25 karoor natiijana filimkan saaxiibada wuxuu noqday flop ayuu noqday filim guul dareysay markaan fiirnay filimkan lacagtu soo xiray gaaraysa 4.25 karoor hadii sicirka maanta lagu jaango wuxuu dhigantaa 10 karoor bar ayuu dhigantaa sidoo kale filimkan saaxiibada asna waxa tigid goosto shaleemada ka daaw sida hada diiwaan gashan dad gaaray 1,936 qof ayaa tigid goosto shaleemada ka daawatay natiijana filimkan Run wuxuu noqday flop ayuu noqday filim guul dareysay ayuu noqday dhinaca kale saaxiibada qiimaha badan maanta oo kale waxa la daawad filimka lagu magacaabo Vol Our Ag filimkan waxa la daawad 14 May 1999 ayaa la daawaday waxaa hogaamiyalka ay filimka markaan fiirno jilayaasha kala mitum Jack Report Jack Sharif iyo sidoo kale filimkan waxa ku jira ninka lagu magacaabo Aruna Irani saaxiibada qiimaha badan filimkan asna waxa la saartay tiyaatar gaaray 95 shilin ayaa laga daawaday waxa loo qarash garay filimka miisaanad gaaraysa 2 karoor cumraantiisna filimkan wuxuu soo xareeyay lacag gaaraysa 97 lakh kaliya ayuu soo xareeyay natiijana filimkan wuxuu noqday disaster ayuu noqday filim burbur oo dadka qaaday markaan fiirno filimkan waxa tigid goosto shaleemada ka daaw sida diiwaan gashan dad gaaray 900,000 oo qof kaliya tigid goosto sidoo kale hal min xitaa ma gaarin dadka tigid u goosan natiijana filimkan wuxuu noqday disaster ayuu noqday filim burbur oo dadka qaaday waad ku maasanteen saaxiibada qiimaha badan daawashada daawateen muuqaalkan waxa halkaas inagu dhan barnaamijkan akhbaaraadka filimta wararka ugu dambeeyay haddii taa markay kuugu horeeyso boqon channelka waxaan ka codsanaa inaad subscribe noo saarto sidoo kale haloobin inaad muuqaalka like noo saarto aragtida comment noo wareeb haddii ka mid tahay saaxiibada hornool joog fadlan muuqaalka share si saaxiib wanaagsan adigoo kale channelka ugu soo bira intaan barnaamijkan la kulmayno amaana Allah salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh barnaamijkan la kulmayno amaana Allah salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh